ubadku waa deeqina waana ubax darayo dareen kolkoliyo daryeelay u baahan yihiin ubadku waa deeqina waana ubax darayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barbaarsamo channel oo anigoo Nasraan idinka soo baahiyo barnaamijyada ku saabsan barbaarinta iyo tarbiyadda wanaagsan ee carruurta. haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku leeyahay soo dhawow, waad ku mahadsantahay inaad soo dooratay ka mid noqoshada bahda barbaarsamo channel. haddii aad tahay bahda barbaarsamo channel hore uga mid ahaydna waxaan ku leeyahay waad ku mahadsantahay joogitaankaaga. gambaleelka furo, share garee, like taha ilaabina. barbaarsamana waxa uu idinka baahan yahay in la soo baritaaro oo kor loo soo qaado. waxa aan idin leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin intiina cusub. markan iyo muuqaalkeennan iyo barnaamijkeennan waxa uu noqon doonaa in aynu ku eegno inkasta oo aan la isku raacsanayn, haddana waxa lagu tilmaamay markii la celceliyey, la isu geeyey, dhinac walba laga eegay, culimada nafsiga, kuwa arrimaha bulshada ay isugu tageen waxa loo yaqaano hooyada fiican ama perfect mama. ma jiro adduunkan wax perfect ah, wax anaa iminka kursi sheegay, laakiin waxaa laga wadaa uun hooyada ugu fiican la odhan karo ayaynu eegaynaa. qaar badan baa soo qori doona hooyo walba way fiican tahay, taa marar horaan ka cudur daartay. hooyada si kastoo ay u fiican tahay khalad bay gashaa, waa bilaa aadan, khaladkeedana in la saxo xaq baa loo leeyahay. aniguba hooyaanahay, ciddii khaladkayga haddii aan khalad galo isaxaysana ama isaxdana aad iyo aad baan uga mahad celiyaa. oon u jecelahayn haddii jeer inaan helo cid isaxda ama wax meel uun aan ka helo fikir aanu arkayo inuu yahay kii isaxayay. sidaa darteed kama wadna inaynu hooyo ataagnahay, laakiin waxaynu ka wadnaa inaynu wax ka faa'iidaysano. adiguna aad isku daydo qodobadan in aad mar walba ku dadaasho oo aad samayso insha allah. 7 qodob ee aan rabo maanta in aan idinla wadaago waxa ay noqonayaa qodobka koobaad sida tan: hooyada wanaagsan waa hooyada had iyo jeer carruurteeda indhahooda ka dhowrta waxyaabaha xumaantada ah ama ay kaga dayan karaan ee aan wanaagsanayn. waxa ay ka ilaalisaa hadallada xunxun, sida inay hortooda ka caytanto, inay hortooda waxan ku samayso, iyo in ay iyagoo arkayaba khaladaad ama siyaabo xunxun u dhaqanto. taas waxa ay noqonaysaa in ay noqoto tusaale wanaagsan maadaama ay carruurteeda indhahoodii ka dhowrtay xumaan oo dhan. waxaan rajaynayaa qodobkan insha allah in ay dad badan oo waalidiin khaasatan hooyooyin ah ay ka faa'iidaysan doonaan, aniga oo u arka ama sida imika aynu aragno in qodobkaasi in badan la jebiyey oo carruurta hortoodii wax badan laga samaynayo oon macquul ku ahayn, idaab iyo akhlaaq midna aan khusaynin. qodobka labaad waxa uu noqonayaa waxa ay ku dadaashaa in ay sida ugu wanaagsan ula dhaqanto xaalad kasta oo ay ku jiraan. hadday cadhaysan yihiin, haddii ay luloonayaan oo hurdoonayaan, hadday gaajoonayaan, hadday faraxsan yihiin, hadday murugaysan yihiin, iyo had walba waxay isku daydaa in ay sida ugu wanaagsan uga falceliso ulana dhaqanto sida khusayso hadba xaaladaasi ay ku sugan yihiin carruurtu. qodobka 3aad ayaa isaguna wuxuu odhanayaa ama sheegayaa hooyada wanaagsan waxa ay had iyo jeer ka fikirtaa oo ay ku dadaashaa wax kasta oo khalad ay u arkaysay yaraanteedii ama xumaan ay u arkaysay oo iyada soo gaadhay ama dadkii ku hareeraysnaa soo gaadhay, oo markaa ay xumaan u arkaysay inay aad uga ilaaliso carruurteeda. tusaale ayaan soo qaadanayaa. haddii yaraantaadii lagu dili jiray, haddii yaraantaadii lagu bahdili jiray,
oo erayo aan kuu qalmin oo dareemaysa adigu inaanay kuu qalmin lagugu odhan jiray iyo haddii yaraantaadii lagugu qaylin jiray intaba haddii aad doonayso inaad ka mid noqoto hooyooyinka wanaagsan waxa ay sheegaysaa daraasadani in aad ka waantowdo oo aad ka ilaaliso wixii ku soo maray oo dhan carruurtaada. haddii aad adigu waxaasoo dhan aynu soo sheegnay oo ku soo maray haddana aad ku sii wado oo carruurtii sidii adiguba aad u dhibsanaysa iyagoo u dhibsanaya aad ku sii wado waxa weeyaan khalad aad u weyn oo aad u badheeraysid waayo waad og tahay xanuunka ay leedahay ee adiga kaa soo gaadhay. qodobka afraad waxa ay mar walba isku daydaa oo ay wanaajisaa sidii ay u wanaajin lahayd mar walba isku daydaa xidhiirka ka dhexeeya iyadii carruurteeda. waxa aanay had iyo jeer isu soo jiidaa carruurteeda iyo qoyskeeda iyo iyadaba sidii ay u noqon lahaayeen qaar xidhiir wanaagsan oo aada u dhow leh. qodobka shanaad waxa uu odhanayaa khalad way geli kartaa, waa bili-aadan, laakiin si kasta oo ay khalad u samayso waa in ay saamaxaad dalbataa oy ogaataa wixii ay carruurta ku samaynaysay inuu yahay khalad. kadibna marka ay laga yaabo tusaale ahaan haddii markaad cadhaysan tahay oo aad qaylisay oo kale, marka cadhadu kaa ba'do bili-aadan baad waad xasuusanaysaa inaad khalad samaysay. waa inaanad sidaa ku daynin oonad kusii adkaysanin ee aad saamaxaad dalbataa tidhaahdaa hooyo markii dhaweyto waan ogahay inaan qayliyey, qayladanna sidaa iyo sidaasaa iga keentay, laakiin waxaan doonaya inaan kaa raali geliyo, waan ogahay inaan khaladkayga ahayd, adiguna khaladka sidaas ahee qaylada iga keenay mar dambe ha samayn. qodobka lixaad ayaa isaguna waxa uu sheegayaa waxa ay had iyo jeer hooyadaasi ku dadaashaa in guriga nabad ay ka jirto oonu noqon guri markasta buuq iyo qayla ka taagan tahay. waxaanay had iyo jeer isku daydaa in deganaansho lagu wada noolaado iyada iyo carruurteeda iyo gurigeeda. haddii ay qoys tahay oo markaa xaajigu joogo isaguna wuu ku jiraa, haddii ay hooyo keligeeda tahayna iyadii carruurteeda. tan ugu dambaysa ayaa iyaduna odhanaysa waa in ay carruurteeda had iyo jeer ka fikirto in ay sida ay yihiin ku aqbasho, ku ammaanto, oo weliba ay isku daydo in ay noqdaan qaar iyagoo shakhsiyadooda ku qanacsan in ay ku koraan. marka la leeyahay shakhsiyadooda iyagoo ku qanacsan ha koraan waxay ka dhigan tahay in laga daayo waxyaabaha shakhsiyadooda inaanay ku qancin keenayo oo dhan, inaan la bahdilin, la caayin, hoos loo dhigin, doqon baa tahay, ilmihiiyo kii maariinka ahaa iyo kii magaranaysaa yara casaay oo kale aan hebel caddo heblaaya caddey tan lagu odhanin. waa khaladaad waaweyn oo guryaha inta badan ka dhaca. marka kii labada maarana wuxuu u arkayaa madowgan inaanu quruxba ahaynoo maxay ahayde waxay ku noqonaysaa dhaawac iyo inaanu ahaanin mid ku qanacsan sida uu yahay. sidaasoy tahay mar walba waxay isku daydaa hooyadaasi inuu ilmaha sida uu yahay ku aqbasho, ku ammaanto, islamarkaana isku daydo inuu ilmahaasi ku koro isagii oo ah mid naftiisa ku qanacsan. intaas ayaan doonayaa markan in aan kusoo gabagabeeyo muuqaalkeena yaree gaaban oo aynu uga ka faa'iidaysanayna qodobadan oo la tilmaamay inay yihiin qodobada had iyo jeer iyo qaar kaloo la mid ahba ay samayso hooyada wanaagsan. barnaamijyada aad jeceshihiin in aynu kasoo hadallo hoos baad iigu soo qoraysaan insha allah, ama snapchatka ayaad sidoo kale kusoo diraysaan. halkaasaan idiin soo saaraya. snapchatku waa isla barbaarsame channel oo snapchat ah, markaa halkaasaad kusoo diri kartaan wixii taliya tusaale ah iyo weliba wixii su-aal ah iyo barnaamijyada aad jeceshihiin in aynu soo qaadano insha allahu tacaala. inta ka horeysa muuqaal dambe oo aynu isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa idinka oo aan ilaawin sheerta, like-ta iyo weliba subscribe-ta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.